Aabahani wiilkiisa gaajo xun ayaa hayso waxayna sugayaan gabadhan intay ka kacayso miiska cuntada ka harta ayay rabaan inay ku noolaadaan. Aabahan waa aabba daacad ah oo jecel ubadkiisa inuu korsado kadibna wuxuu sameeyay qaadada ugu horeysa wiilka ayuu siiyay. Asagoo wiilka siinay cuntada ayaa waxaa arkaysa gabadhi maqaaxida lahayd waxayna garawsanaysaa inay cunto fiican u geyso oo cuntadan ay ka qaado. Runtii waxaa nasiib weyn leh qofkii aabihiisa iyo hooyadiisa nool. fadlan adiga hadda muuqaalka daawanaya haddii aabbahaaga uu nool yahay ku soo qor kommentiga aabba macaan hadduu aabbahaaga geeriyoodayna ku soo qor kommentiga aabbeega wuu geeriyooday sidaa anagana kuu dhehna allah u naxariista aabbahaaga runtii waalidkaaga markuu dhinto ama walaalkaaga dhinto wuxuu kugu leeyahay mar walba inaad u ducaysid aad tiraahdid ilaahu rabbiyo raxmaano khabrigiisa u waasici walaalkayga ilaahu rabbiyo raxmaano khabrigiisa u waasici aabbahayga ilaahu rabbiyo raxmaano hooyadeeda khabriga u waasici intaas hadaad tiraahdo wax weyn ayay u qabanaysaa because waxaa loo baahan yahay waalidka markuu geeriyoodo in qalbiyadiina ay ka dhex noolaadaan ama ay ka dhex buuxaan weeyaan oo mar walba aad soo xasuustaan sadaqada aad u bixisaan inta wax u taraysa ayaa intaas ah marka waxaa inoo balan ah waalidiinteenna hadday geeriyoodeen inaan u duceyno hadday nool yihiin inaan u duceyno dembigooda iyo dembi waalidkooda inuu ilaahay dhaafo muuqaalkana laayigta ka baqiilin oo na sheergareeya suu u gaaro walaalaha aan aabbaha lahayn iyo walaalaha aabbaha leh iyo walaalaha hooyada aan lahayn iyo walaalaha hooyada lehba